dowladda Kenya ayaa maanta shixnadii ugu horeysay oo shaaha u dhoofisay dalka Ghana iyo Benin kuwaasi oo hoos yimaadaan aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika. Madaxweyne William Ruto oo xariga ka jaray shixnadani shaaha ah ayaa sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay lacago deyn ah siiso wakaaladda horumarinta shaaha si ay u buuxiso shuruudaha 6 bilood ee shaaha caalamiga ah. Tani ayaa waxay ka caawin doontaa beeraleyda ku xiran hay'adaha horumarinta shaaha ee Kenya markii magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano KTDA inay lacag dhan 30.5 milyan oo shilinka dalka ah helaan shixnadii ugu horeysay ee shaaha kadib markii dalalka Ghana iyo Benin ay daaqada ka saareen 10% canshuur soo dejinta shaaha ee dalkani Kenya. Madaxweyne William Ruto ayaa sida oo kale sheegay in xarun gaar ah laga samayn doono Dongo Kundi si loo habeeyo baakadeeyo isla markaana qiimaha loogu daro shaaha. Mr. Ruto ayaa sheegay in 5 sano ee soo socota ay dowladdu qiimaha shaaha ka dhigi doonto 50% ugu yaraan inta uu dalka ka helayo shaaha saxda ah. Madaxweyne William Ruto ayaa ku dhiirigeliyay cid kasta oo doonaysa in ay isticmaasho shaaha tayada wanaagsan in ay la shaqeeyaan dowladda.